runtii markaa fiiriso nidaamka uu aqalka sare ku samaysmay iyo dadka soomaalida aragtida ay ka qabaan iyo faham darrada hataa aan la fahamsanayn macnaha uu leeyahay aqalka sare iyo shaqadiisa waxay tahay xitaa aanan si fiican u qeexnayn waa nasiib darro aqalka sare wuxuu ka kooban yahay horta sidiisaba waxaa lagu dhisay si degdeg ah oo aada looga fiirsan wuxuu ka kooban yahay 54 xubnood dastuurku ku qoran yahay dastuurkii aan la dhammaystiriyo qayb ka ahaa ku qornaa si marka loo fuliyo ujeedada ugu badan ee laga raacay oo loo suubiyey 2016 waxay ahayd dastuurku ku qoran yahay madaxweynaha waa inay doortaan labada aqal darteeda yaa loo boobsiyey oo sidii u samaysnaana aana loo samayn markaa fiiriso waa 54 xubnood 54taas xubnood dadkii qubarada ahaa oo dastuurka ku soo qoray waxay kaga talagaleen xisaabta 3 qaybood in mid laga dhigo 3diina midna lagama dhigin marka ugu horeyso waxaa lagu cabiray 18 gobol ee Soomaaliya hore in lagu qaybiyo oo gobol kastoo ka mid ah uu helo 3 senator maya marin processka asaga mid labaad oo dadkii soo qoray ay ka fikireen nidaamka baarlamaanka aqalka hoose uu samaysan yahay yaa lagu cabiray oo loogu talagalay oo ahayd 4.5 in lagu qaybiyo beel kastana ay hesho 12 beesha shanaadna ay hesho 6 ayadana lama marin midda saddexaad ugu dambayso state lagu qaybsadaa layiri stateyadiina looma simin oo wax stateyada ay u sameeyeen marka waxaa arkaysaa inaan dan badan laga lahayn sidii loo sameeyay aan faham fiican laga qabin oo laga gaarsii natiijo loogu talagalay ma jirin doorashada madaxweynaha ka qayb galeen hala boobsiiyo halaga gaarsiiyo xoogoo waa laga murmay kana qaylo badan ha qaato kana aamusnaan badan ha laga tago jaf yay ku samaysantay